muuqaalka soo aadan wuxuu ka turjumayaa kubadda cagta ciyaartooyda ciyaarta kan ugu muhiimsan ee loo arko inuu yahay kan go'aamiya hadba natiijada marka laga soo tago dhammaan ciyaartooyda kale kan waxa lagu tilmaamaa inay tahay kan uu go'aamiyo natiijada marka Soomaali joogtid inaad noqotid goolhayane aad ay u adag tahay Abdullah Sheikh oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaa gudoonsiin doona ama ku dhawaaqi doona magaca abaalmarinta goolhaye ugu fiicnaa 2019 waxaan rabaa inuu yeero insha Allah goolhaye ugu fiicnaa tartankii la soo qabtay the best goalkeeper sanadka 1919 inuu noqday Saciid Aweys Ali Saciid Sodo سعيد أويس علي يمني عبد الله الشيخ قدومي كوهينكا لو هذا حريق سماده كوبدا عagta ayaa guddoonsiinaya abaalmarinta golahay ugu fiicnaa sanadkii tagay 2019 dhamaan shabaq ilaaliyaasha horyaalka Soomaaliya sidoo kale wuxuu ku guuleystay abaalmarin lacageed $2,000 waxaana bixinaysa abaalmarinta lacageed ee Sports oo shirkadda Sports oo qalabka ciyaaraha sameysay ku taalo magaalada Muqdisho door weyn ay ku leedahay ciyaaraha dalka xilligan ayadoo dhinac walba kaga saacidaysa sportska hadii aan leeyahay qalab hadii aan leeyahay dhaqaale aad ama santaad maamule wallahi ma la soo koobi karo dareenkayga waxa ma hadnoqaa xiriir kubadda cagta Soomaaliya iyo guddoonsiye abaalmarintan oo qaalida ah sidoo kale waxa ma hadnoqaa marti sharafta dhamaan meeshan joogan sidoo kalena waxa uu siima hadnoqaa gudoomiyaha qaaliga ee mar walba igu dhiirigeli jiray inaa oo wax fiican keeno karo xulkaygana wax uu qabo karo aad oo ma santahay gudoomiyaha Abuukar Sheekh